kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono wararka suuqa iibsiga haddii janaalka Wararkii sports ku cusub tahay subscribe saaro si ku soo gaara muuqaaladan soo socda muuqaalkan shirgareeya maasanidin saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay fiid wanaagsan haddaan ku bilowno muuqaalkeena caawa Wararkii wuxuu jecel yahay Tottenham wuxuu hogaami doonaa dib u dhiska kooxda sida uu qabo agaasimaha ciyaaraha Tottenham Fabio waxaana saas qortay dasan Barcelona madaxweyne ku-xigeenka Rafael ayaa hoos u dhigay wararka sheegaya in kooxda Barcelona xagaaga dambe Haaland ay la soo wareegayso waxaana saas qortay muddo dabartiifo Arsenal ayaa tixgelinaysa inay bisha January u dhaqaaqdo xiddiga Liverpool Alex Jabarnin 28 jir koor intuusan ka tagin kooxda Arsenal 2017 waxaana saas qortay shabakada dasan Neymar ayaa sheegay in koobka adduunka 2020 uu noqon doono midka ugu dambeeya oo ciyaari doono 29 jirkan ayaa ka hadlay inuusan hubin haddii uu leeyahay adkeysi maskaxdeed ee ku aadan kubadda cagta kula sii tacaali karo waxaana saas qortay goal.com Barcelona ayaa iska diri doonto Usama Dembele haddii uusan heshiis cusub u saxiixin Barcelona ayagoo bedelkiisa isku day doonaan saxiix Raheem Sterling oo ka tirsan kooxda Man City waxaana saas qortay Sports ka soo baxdo horyaalka Spain Newcastle United maamulkeeda cusub ayaa fikiraya in tobar Steve Bruce ay ku bedelaan Brendan Rodgers la City hogaamiye u ah Steven Gerrard Rodgers maamulaha ama tobarii hore Borussia Dortmund Lezen waxaana saas qortay Mail Juventus ayaa Aaron Ramsey u adeegsan doonto heshiiska Manchester kaga doonayso 29 jirka qadka dhexe ee Paul Pogba waxaana saas qortay Mail Newcastle United ayaa bartilmaameed ka dhiganaysa afar xidig oo Man United ah bisha January waxayna kala yihiin Anthony Martial, Don van de Beek, Eric Bailly, Josh Lingard waxaana saas qortay shabakada Mirror Ramsey ayaa xagaagii diiday Wolves balse weli qorsheynaya inuu Juventus ka tagi karo xagaaga dambe waxaana xiiseynaysa Newcastle United Calcio Mercato ayaana daabacday Tottenham ayaa la xiriirinaya in 23 jirka qadka dhexe ee Mareykanka McKean iyo 22 jirka garabka weerarka ugu ciyaara Swedish Legend oo kala soo wareegaysa kooxda Juventus waxaana saas qortay Calcio Mercato Tottenham ayaa sidoo kale Alvaro Morata oo isla Juventus ka tirsan ka dhigi karta bedelka Wararkii Morata ayaa haatan heshiis amaah kula joogo kooxda Atletico Madrid Liverpool ayaa diyaar u ah inay kor u qaado soo deynista 25 jirka kooxda Wolves Adam Traore Chelsea ayaa heshiis kordhin kula heshiisay daafaca qadka dhexe kooxdeeda Christensen waxaana saas qoray wariyaha dhanka ciyaaraha Fabrizio Romano isagoo ku soo daabacay Twitterka ugu dambeyntii Marco Verratti ayaa sheegay inuu isha ku hayo inuu waayihiisa ciyaareed ku dhumeed doono kooxda PSG France Info ayaana saas qortay saaxiibayaal kuwaas waxa ay wararkii suuqa iibsiga saaxiibada qiimaha badan fikirkiina waad ka soo dhiibi kartiin muuqaalkan waad share gari kartiin waad ku maasidii daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga soo arki doono sidaas iyo nabadgelyo